gaadhigan oo noociisa loo yaqaano Treef uu saaran yahay qoriga loo yaqaano Dhishikaha iyo ciidankiisa ayaa ka soo goostay ciidamo maleeshiyaad ururisa oo dhowaan Puntland ay keentay Buuhoodle kuwaasoo ay sheegeen inay tababar ugu soo dhameeyeen xerada Xorgable. ciidankan iyo gaadhigan ayaa u soo galay ciidamada militariga gobolka Buuhoodle guutadiisa 95aad ee fadhigeedu yahay gobolka Buuhoodle. ugu horeyn waxaa ciidanka soo dhaweeyay taliyaha ciidanka militariga gobolka Buuhoodle gaashaanle sare Maxamed iyo saraakiishiisa ciidan. dhanka kale ciidankan ka soo goostay ciidamada maleeshiyaadka ururiska ah ee Puntland keentay Buuhoodle ayaa sheegay inaysan u dulqaadan waayeen nabadgelyo darro iyo iska horkeen shacabka Puntland ay ka wado gobolka Buuhoodle. maanta laga bilaaban ay ka mid noqon doonaan ciidamada difaaca militariga gobolka Buuhoodle ee Jamhuuriyadda Somaliland. soo galay baabuurkii aanu ka codsanay in aad noo qaramayso iyo ciidankii saarnaa kaasoo ka mid ahaa ciidankii daraad yimid magaalada ee ka yimid dhinaca Puntland ee tababarka ka soo baxay. baabuurkaasi gacantaan ku haynaa waa kan hadda dhabarkayga taagan ciidankii iyo isagiiba gacantaan ku haynaa taliya. nin ka mid ah ciidanka taliyahoodii wuu hadlayaa marka dee intaasaan kuu sheegaynaa. ugu dambeeyey hadda aan asbuuca Buuhoodle joogin gacanteedu ku jira taasaana markhaati furwa haddii uu kuwa kale damco inuu Buuhoodle ku waxyeelayo amnigeeda ku khalkhalgeliyeen shirka abgaaliya jalanka Puntland mid kasta uu ku soo tabcaa gacanteedu buu ku dambeynaya gacanta Somaliland buu ku dambeynaya. xaalad amni baan u joognaa waa u joogi doonaa kama baxana uu ka shaqeynaya sidaas uu joogaya ciidanku maanta uga shaqeynayo gobolka dhexdiisa uu ka shaqeyn doona wabillahi tawfiiq. Cabdi Maalik Gadari, Telefishinka Qaranka Somaliland, Buuhoodle.